aniga ma aqaan waalidkeyga xaqa aan ka galay ninkaan maalintuu isoo guursanayo wuxuu idhahay hoostaada maka baxay cagaha dahabkuugu xiraa facaayaa u ekaanay hal riigi iyo barow ii gaday hal garaan iyo laba riigo $50 ma dhammaan umaleynaa soo u baxa ma arkay waa wacaa shiraa ku jiraa maleega qabanaayo gurigoo igu xaqiraaya uurka koowaadaa leeyahay aroosadaana ahay da'dii labaad uma dhalin da'dii koowaada caloosha ku wadaa habeenkii markuu imaadana wuxuu iigu jawaabaa ninkaanayta laabo muxuu saa iigu xaqiraa ficeysaa ugu faanayna waa daalaa u dhahay ninkeyga adduunkoo ii jecel yahay ilaan waarida ugu soo go-ay an ma is eebeen karo maleega qabanayo alla maalintoo isoo guursanayo ninkaan muxuu i dhahay ani kaama hoostigaay meel walba wareeganaa kuu wadaayo ninkaan nimanaa kawaalooyo niman qayiloo ninkaan la socdaayaa umaleynaa hal cunug lee waayaa cawrka koowaad alla nimanka been badanaa shalay muxuu i dhahay aniyaa nooci waxaa tahay dheemaluula adiyaa nooci waxaa tahay shirarka loo wadanaay nooci maqaayadaha lala aadaay nooci cirka la geena sorry laabo ninkaan soo iigu dhageysanayo taleefanka alla ficey anaa hoos maray shalay saa u qurux badnaa markuu isoo guursanayo maantana waa ila hare laabo da'dii koowaad leen wadaa cunug labaad xataa uma dhalinaan ku dhahay saanaa la ii yasaa ninkaan nimanaa kawaalooyo habeenii maanta soo igu dhageysanaa alla anaa go-ayey laabo dee caawa fool igu soo booda meel iguma sheego soo iiyasayaaba iigu dar shalayna markuu i baranayo aan waalidkay kaga soo go-ay iyagoo nin igu dari rabaan oo sharaf leh aan dhahay hebelaa muxtaram oo isguursanaynaa ixtiraam sorry soo maaha allaabo muxuu xaq ii nabsi iga galay alla maxaan ku diimi jiray heblaaye iyo aamoo ilig iyo faqfaq faruureeba maxaan ku diimi jiray ani laabo maa iga qabatid shalawaataa ogeed waxaa i dhaheys jir iyo adduunya meel walba anaan ku wada waa laygu damiyey maxaa leega haleeyay yaa waa markuu iga raayay laabo maba iga qabanooye stressa I haysto raxmaan aan been ku cabaa maxaa iga galay iidaan iska wacanaaya qaybta faankaana u degaa saacadahaas tii saaxiibtee ahayd ilaa iska raaxaysanoosaa malaha iidan waa u shidantahay nolosha iskaabulanimada iidaan wacanaa saaxiibteedaan wacanaa waa ku faana أخوان رحميت عديساتا أخوانتي والله إلهي وحال الله مكو قرقارا مسقر دقدي وكور ذا لا أخوان ماشيها وفي عيا والله دوشو قادنو يا مسكشو كجرا ها ما بقى أكتاك
soo ii koolkoolinoyo nolosha la igeliye la aqwaa ilaa ku daaray walla naa nolosha iskaabulnimada nolol ma amaleysa nolosha waxa nolosha ka dhacay waaye wallahi jaceelo isiiyayaan ku dhahay nololoo igeliyaayaan ku dhahay habeenkii ma jiifanay asoo caloosha shusumin cunug dhagaha la saaran jugta iyo feerka daqiiqada markaan karnaa jikado igula jiraa dhan salaatadu jarjaraa asimaha ha an salaatadu jarjaraa aqwaa wallahi aan ku dhahay noloshaana ma ii dambaysaa taaganahay farxadda jaceelka la isiino maashiga wallahi noloshaas soo igeli shalay wuxuu ii soo gaday bahal dhagi ma waxaa la yidhahay beebiyey waa ogtahay ilmihaygu hooyadoodaa tahay waxaa rabaa gabar adig ku egla inaa ii dhashid camal loo bahalsan gaabanoo hareed lahoo indhashiineesale camal qaybta faanka waayahay macaanto noloshaan ka baxniyay waayahay bay hayanaa kugu salaamay si kuu soo baxay anaa ku soo wacaye mushkumaana u geenahay qaybta faanka u degana yaa iga qabtaba taleefon yaaba i rabo cunug dhugdhug lagu lahaa markuu guriga saas oo u soo galabo oo dharka iska sii wujigoo ii bedelaa meeshuu ka imaaday kaale adasheeg uusey oo kaftan aan waa lii daraa ilaantiya ahee uuska xaajiye ah waa la ii daraa ilaahow daryeel deegaana maqli jir ilaahow daryeel dumarnimo labo nolosha ay waxa kaarin inaga qabo taleefanka labo iga qabo taleefanka أسوي دبسنا ومحام الله شكر دعاني الله أكبر الله ما يقط تلفون بديني ماشيس walaalkii haddaan u sheegan dhibaata ay u dhaceysee inaan u faano leh maahan ciddeyde isma bahdilaay ceeb waa ninkaaga ceebtiis waa la asturaa inkastoo wallahi bilaahi talaa aroosada ah cilaan cagayga ma saaraan ku dhah stress ay ugu furan confuse haddana cunug maa dhaandhaan iiga dhigooy uurkumaan ku jeclaaday ma ogi ninkan wuxuu igula hadli jiray oo dhan aan waaysanahay ilaaha joogo nafsiyaa ka galay shalay gabar yaraa ahaa 20 jir ee markaa isoo guursanaysay waalidkeyga oo idhahayaan ka joog ah ku soo raacay maantana da'di koowaad lee ku wadaa goormeel ii xiisa dhacay islaa ayayday oo talyaaniga ka hartaa waxay ka maqli jiray mahmaa waxay dhihi jirtay afrikaan unya jero sitimaan week lee waay ma dhaafaysa xiisahaaga haddaa biyo dahab u egtaa iyo haddaa quraysh tahay iyo haddaa huuralceen tahayba 1 weegaa tahay adiga dhan cusub la guuraa la dhahaa yacni maanta aniga markaa xaamilo aan noqday hadda goormee laga xiisi dhacay jaamaba baatiga xataa nolosha maba ka dhicine waa waray cunug koowaad lee wada ama ibid igu madoobaataa yaa uurka ama ibid igu madoobaataa okay لا جو لا